munaasabadani oo ahayd mid ay cududooda taageero ay ku muujinayeen xisbiga kulmiye beelaha dega gobolka Togdheer ay kamid ahaayeen beelaha Birmaal Muuse Dheriyo Madhibaan iyo Brood iyo Beesha Maxamed Barre munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer cuqaal waxgarad haween dhalinyaro aqoon-yahano iyo mas'uuliyiin isugu jira madax dhaqameed iyo siyaasiyiin ka kala yimid magaalada Hargeysa iyo Berbera waxaana ugu horeyntiba munaasabadani ka hadlay isla markaana qeexay ujeedada munaasabadani daaran tahay cuqaashi waxgaradkii iyo haweenkii soo agaasimay munaasabadani waxaana hadaladoodii kamid ahaa xaq bay ii tahay weyn in la igu soo casuumo xafladda tan qiimaha leh aad iyo aad baan uga mahad celinayaa dhammaan bulsho weyntan xafladda qabsatay iyo xisbiga kulmiyada celinayaa beelahan dan wadaagta ee afarta beelood ka kooban farasuul waa ka gooni baa la yidhi beeshayadu waa beel ballaaran beeshaasi waa beesha xuseen cali oo ah magaliya maxamed waa Birmaal waxaan halkan ka cadaynaynaa hore kulmiyaan u ahayn haddana kulmiyaan qateen inaad garab siisaan annaguna waa idinku garab taagannahay haddii aan hortoogaha beesha Maxamed Barre ahay cudud iyo alaf mid walba waxaan la hor taagannahay oo diyaar u nahay xubin xaakimka kulmiye uguna faraxsanahay sida sharafta leh ee milkada leh ee midnimada leh ee ay beelahani caawa isu raaceen ciisuu ka muuqda milixdii Soomaaliland bal dhariga khudrad kasta ku daro bal milix ku daro inaad dhadhamiso meelaanu ka maqanahay waa baris bilaa milixahay dad marka horeba aha xisbiga kulmiye ha noolaado Soomaaliland ha noolaato beelahaasi ha noolaadaan waxa kale oo aan leeyahay cabaarintii cambaarinayeen nimankii ay lahaayeen Axmed Maxamuud Siilaayo madaxweynaha dalku waxba nooma qaban way ka been abuurteen magacooda inay ku ugaarsadaan ee maalin walba shaashada taagan eela waxaanu nahay beelaha gabooyay wax gabooyay la yiraahdaa ma jiraan saddexda xusbi qaran bas aasaan u sheegay marka la dhigo kaambeenka iyo hawlaha xisbiga soo diyaar ma nihin beesha reer Sheekh Muuse beesha Muuse Dheriyo beesha Madhibaan beesha Birmaal beesha Brood waxay xaqan caawaan ku muujinayna taageeradeena buuxda Soomaaliya iska soo yara daba dhacay sawirro beena oo aan xaqaayiq fara badan ku saleysnayn waxaynu arki jirnay baasaboorro la foojari gareeyo dadku intay sawiraan Ilaahay ku dhajiyaan baasaboorrada ay ku dhoofaan oo foojari laga dhigo laakiin dad aan dadkii magacoodii lagu sheegay aan ahayn inta munaasabada lagu soo buuxiyo taageeradii beelaha gabooye ama beelaha oo isku dhafan magacyada halka ku qoran oo dhani waxay ku biireen xisbiga wadan waxay sawirkaasi muujinayaan inaan loo kala hadhin taageeradii xisbiga kulmiye in sawiradii iyo wixii halka la taagnaa ay waxba kama jiraan mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer xildhibaan Cabdirasaaq Qaar iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka mahadnaqay sida ay beelahan u muujiyeen cududooda taageero maragu tahay qiimaha iyo karaamada iyo sharafta xisbiga kulmiye uu hayo beelahan shanta ah ku salaamayo salaan idinka sida musharax xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi halkan waxaad muujiseen cududiinii iyo xooggiinii iyo taageeradiinii iyadoo bariyahan dambaba xisbiga wadani uu meelaha beelahan magacooda uu ka sheeganayay Khadar Cabdirasaaq Salebaan Khadar Hanad Bulsha TV magaalada